mid ka mid ah boqoradii dunida dhan ka soo taliyay waxaanu jabiyay boqortooyinkii lagu magacaabayay Ashuuriyiinta iyo soo kale Masaarida waxaanu taariikhda ka masaxay boqortooyadii Yahuuda lagu magacaabi jiray caasimadeeduna Arshalim ahayd soo kale waa boqorkii dhisay dhirtan gidaarada ku dheedsan ee magaalada Baabil sawirkan laga yaabo inaad hore u aragtay waana xaqiiq oo dhir gidaarada ku dheedsan ayuu sameeyay waxaanu tuumbo korka uga soo riday biyaha siisa dhirtaas muuqaalkan inaan kaga hadlaynaa boqorkan lagu magacaabo Nabucodonosor fadlan nagu soo subscribe saarsaad noola socoto muuqaalada dambe daawasho wacan عربتو waxay ugu yeedhaan boqorkan magaciisa Nabucodonosor ama Bukhnassar soo kale magaciisa akaadiga caadiga ah waxa weeyaan Nabucodonosor oo laga wado Nabo waxay ka wadeen Baabiliintaasi ilaahay ganacsiga ay waqtigaas caabudi jireen soo kale Kodorosor waxa laga wadaa xuduud ilaaliye boqortooyadii Furus waxay ugu magacaabi jireen ama ugu yeedhi jireen Bukhnassar oo ay ka wadaan ninkii nasiibka wanaagsan laakiin taariikhnada waqti xaadirka waxay jecel yihiin ugu yeedhaan Nabucodonosor kii labaad ama Nabucodonosor kii weyna sababta Nabucodonosor kii labaad lagu yeeray waxay tahay sababtoo waxaa jiray Nabucodonosor boqor loo oran jiray oo isaga ka horeeyay Nabucodonosor wuxuu noolaa intii u dhaxaysay sanadii 627 ilaa sanadii 560 Nabi Ciise koor taariikhdan BC la yiraahdo ama Nabi Ciise koor haddaan fahansanay waxa weeyaan Nabi Ciise dhalashadiisa ayaa kow laga bilaabaya kadib dib ayaa loo tirnaya oo marka tiradu maalinta ay galaysa oo Nabi Ciise koor ee loo oranayo sadarteed 627 ay u dhashay waxaanu geeriyooday 560 taariikh dib ay haddana soo noqonaysa oo ay soo daadaysa magacaan soo kale laga yaabo ama boqortooyin laga yaabo in kugu cusbaadan ay jiri doona insha Allah waan fasiri doonaa Nabucodonosor wuxuu ahaa curadka aabihii Nabopolassar boqorka Nabopolassar wuxuu ahaa ninka ka soo saaray caasimadda Baabiliinta gumaysigii boqortooyadii Ashuuriyiinta lagu magacaabi jiray oo ka dhigay dawlad awood badan marka aabihii Nabopolassar wuxuu ahaa lafdhabarta dawladda Baabiliinta lagu magacaabay dawladda Ashuuriyiinta la yiraahdo ee caasimadda Baabiliinta gumaysan jirtayna waa dawlad ka talin jirtay labada wabi dhexdooda labada wabina waa Ciraaq Suuriya iyo koonfurta Turkiga Nabopolassar intaas kuma ekaanin xataa caasimadda Ashuuriyiinta ee waqti xaadirkaas Nineveh ayuu qabsaday Nabucodonosor sidii aabihii oo kale ayuu haddana mar kale jabiyay Ashuuriyiintii soo kale wuxuu jabiyay faraacintii Masar ka talineysay oo waqtigaas uguna dawladda awood badan ahayd dagaal lagu magacaabo Karkamish waxaanu Nabucodonosor ku guuleystay intaanu boqor noqon kor inuu qabsado dhulkii Shaam oo dhan ee dawladda Ashuuriyiintu ka talineysay laakiin bishii August 605 Nabi Ciise koor waxa geeriyooday Nabucodonosor aabihii sadarteed Nabucodonosor wuxuu ku noqday caasimadii Baabil oo xilkii aabihii xagaas uu kula wareegay oo ku noqday boqortooyada Baabil Nabucodonosor isla markii boqortooyada qabsaday ciidamada uu diyaariyay waxaanu diray dhankaasi boqortooyadii lagu magacaabi jiray Yahuuda ee Yahuudu lahayd isla markii Yahuudu sii jeeray waxaanu gaaray ilaa xuduudii dawladii faraacinta Masar ka talineysay Baabiliinta iyo Masaarida marka waxay ku kulmaan xuduudda Masar ee dararsanadii la Gaza magaalada maanta u naqaano laakiin nasiib daro Baabiliintu ay ku jabaan dagaalkaas Gaza ku dhaxmaray Masaaridii waana iska soo laabtaan Baabiliintu waxay ku fiicnaayeen magaalo walba ay galaan ay qabsadaan may burburin jireen kaliya waxay ku soo rogi jireen cashuur laakiin waxa bilaabmay in magaalooyin dhowr oo Shaam dhaca ay ka soo horjeestaan xukunkii Baabiliinta waxaana ugu horeysay oo bilowday rabshada magaalada Casqalaan lagu magacaabo ee Falastiin dhacdo waqti xaadirkan sanadii 604 ay magaalada Casqalaan bilowday rabshado kaga soo horjeedaan xukunkii Baabiliinta laakiin Nabucodonosor isla markii ciidamada u diray dhankaas Casqalaan magaaladiina uu qabsaday dadkii ku noolaa dhamaantoodna waa doonsaday nin isaga ka socdana uu magacaabay Casqalaan inuu xukumo boqortooyadii Yahuuda lagu magacaabi jiray oo Arshalim caasimadeedu ahayd laftarkeedu way diideen cashuur siiso Baabiliintii Yahuuda boqortooyada la yiraahdo asal ahaan waxa ka soo farcameen Nabi Daawud calayhi salaam boqortooyadiisii iyo Nabi Suleymaan way diideen in wax cashuur siiyaan Baabiliintii sadarteed Nabucodonosor wuxuu bilaabay inuu go'doomiyo Yahuuda laftarkeedu caasimadii Arshalim furto Nabucodonosor markaa wuxuu bilaabay inuu warar ku qaado boqortooyada Yahuuda oo gudaha u galo dad badan oo kamid ah Yahuudiin uu soo qabsado adoonsado waxaana kamid ah dadka la soo qabtay boqorkii Yahuuda laftarkiisii sanadii 597 laakiin Nabucodonosor muu burburin boqortooyada Yahuuda asideed ayuu ku daayay kaliya boqorkii uu soo qabtay wiilkiisii ayuu boqor uga dhigay Yahuuda laakiin Yahuuda oo dibkooda naqaano rabshado kale ay bilaabeen oo ku macaaradeen Baabiliintii xukunkoodii waxaana taageero ka heleen faraacintii Masar Nabucodonosor markuu maqlay mucaaradnimada Yahuudu sameynayna kaga soo horjeedaan xukunkiisii horta markii ugu horeysay isla markii wuxuu weerar ku qaaday faraacintii Masar ee soo caawinaysa Yahuuda
kadib dagaal uu kusoo jebiyey masaaridii wuxuu u soo jeestay yahuudda si uu cashar ugu dhigo lama ilaawaana nabuukhadnasar wuxuu bilaabay inuu go'doomiyo caasimadii yahuuda ee arshalimna waxay u yaqaaneen magaaladan waqti xaadirkan quds u naqaano go'doon kadib wuxuu ku guuleystay inuu caasimadii arshalim galo waxaanu dhammaan dadkii ku jiray soo wada kaxaystay oo wada adoonsaday caasimadii sida uu dhammayn uu burburiyo gebigeedaba dab ayuu qabadsiiyey soo kale wuxuu burburiyey haykalkii Suleymaan haykalka Suleymaan maanta yahuud raadiso way ogyihiin inuu burburiyo nabuukhadnasar boqortooyadii yahuuda ee ka farcantay nabi daawud calayhi salaam iyo nabi Suleymaan nabuukhadnasar uu burburiyey taariikhda ayuu ka masaxay sanadii 587 yahuuda laftirkoodu nabuukhadnasar si fiican u yaqaanaan taariikhnada muslimka qaarkood waxa dhaadaan nabuukhadnasar wuxuu ahaa ilaahay ayaa soo diray si yahuuda u burburiyo yahuuda laftirkooda qaar ayaa aaminsan maadaama yahuudu ilaahay caasiyeen ayuu ilaahay shaytaanka nabuukhadnasar u soo diray saa darteed ayuu boqortooyadooda u burburiyey boqortooyada yahuuda waxay ahayd boqortooyadii madax banaaneed ee ugu dambeysay yahuudu inay asaastaan ilaa laga soo gaadho Israa'iishan maanta maqalno ma jirin dawlad madax banaan oo inta u dhaxaysay oo yahuudu lahaayeen maalmihiisii ugu dambeysay nabuukhadnasar wuxuu ka tagay dawlad ka soo bilaabantay khaliijka carabta ilaa dhulkii furus ilaa Mediterranean-ka badan lagu magacaabo wuxuu ka tagay dawladii ugu awoodda badneed waqtigaas caalamka wuxuu geeriyay isagoo 44 sano jira waxaa dhaxlay wiilkiisa lagu magacaabo Amiil Mardukh wuxuu soo kale ka tagay farshaxanimo aad u hor sareysa heer uu gidaaradii Baabil uu ku dhajiyay dhir tuumbooyin waaweyn oo korka uga soo ridaysay dhirtaas biyo uga helaan ruuxantii farshaxanimo aad u hor sareysa oo sawiraantan aad soo bandhigay ay ahaayeen waxaana la sheegay inuu ugu talagalay xaaskiisa Amidia soo kale wuxuu ka tagay laba gidaar oo aad u waaweyn oo caasimadda Baabil lahayd magaalooyinka waqtiga hore waxay lahaan jireen gidaar weyn oo magaalada dhan ku hareeraysan laakiin isagoo caasimadda Baabil wuxuu ka tagay laba gidaar oo aad u waaweyn balac ahaan aad u dhaadheer heeray gidaarada dusheeda fardaha alaabaha wada dul socon jireen macnaha wuxuu ahaa farshaxanimo iyo horumar aad u sareeya waxaan soo kala dhisaa libaax aad u weyn oo ilaa waqti xaadirkan magaalada Baabil Ciraaq ku yaala caasimadiisuna waxay ahayd magaalada ugu quruxda badan dunida waqtigaas uu isagu joogay nabuukhadnasarna dagaalyahan kaliya ma ahayn soo kale nin caqli badan ayuu ahaa oo wuxuu ka faa'iideysan jiray magaalooyinka ku duulo oo qabsado dadka caqliga badan ku dhex jira soo kale dadiyugu qabsado badankooda wuxuu ku dhaqi jiray isa saamax diimeed oo xalaalaado oo cid walba diinteeda xor ay u tahay ayuu oran jiray soo kale badankooda wuxuu siin jiray xorriyadul qowl waxaan u naqaan maanta ee ah inuu qofku wuxuu doono iskaga hadlo magaalooyinku qabsaday waqtigaas waxay u bixiyeen magaciisa furtaha magaalooyinka sababtoo magaalooyin aad u fara badan ay furan jiray wuxuu ka ilaalinayeen soo duulaha marka sadarteed bay furtaha magaalooyinka ugu bixiyeen waxaanu caan ku ahaa shakhsi ahaantiisa badanka inuu la tashto dadka kaaga dhow oo la tashigiisu aad ayuu fara badnaa waxaanu oran jiray kibirku nafta ayuu burburiyaa nabuukhadnasarna ma aha nin ilaahay garanay ama ilaahay caabuday muwaxid ama muslim ah wuxuu ahaa nin gaala oo waxyaabaha khuraafaadka iska caabuda muuqaalkan maanta intaas uu noogu egyahay fadlan haddaad nagu cusubtay subscribe saad noola socoto muuqaalada dambe sina share garo asxaabta la wadaag السلام عليكم